إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إنها واحد سيدا وعسيه مارتها وأهمني معناه no way to go meel ay u cararaysaa ma jirto xagga hadee aad gaal cad baa jooga wuxuu leeyahay give me the kids ilmaha isi dhinaca kale hadee u carartana gaal madow wuxuu leeyahay give me the kids ya hadii ay meel islaan jooga u carartana kii waa kaga horeeyay maxamedkii caruurta dhalay indhaha casiyay baa kaga horeeyay wuxuu leeyahay ilmaha isi ilaa awal bacdaanka saga soo diray hooyada inta alle ee caruurteeda dhabanada haystaan ee ooyeysa ee waalida lagu tilmaamay indhuhu ay casaadaan halka ay joogto miyaysan Soomaali joogin war miyaana dad islaam oo shahaata aysan joogin بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاعد ملك الدنيا كجوكتان الله وحنا كل جنيه عافمات يا عباد الصبن يا عمل خير متكسر مراد إلى واحد ودين مراد كسبت خير كذي وإحنا صنع عافمات عم نسيو كن جريو دي جنة وتقول هو يغيره كل جريو أنا سمري وأنا كسر كورش هيسترح معنا شو بركة يقول له شو قاعد قلبه بركة سناسيو لما رأى ذلك يمين أنا بدي برشة سومالي وأنا بدنا له وسني ويا سوماليا وأنا أدو كنا حي يا وقف كسر دمير له وكنا حي حالته يكون جستو ayaa leela soo wadaagay waxa lagu soo diray wixii aalad bulshada iskala xiriir jirtay oo dhan hooyada sidaan tilmaamay ama qiyaasay ama halka lagu sheegay halka ay joogto waa America United States of America meeshaas baaragaleen bay noqotay caruurtii iyo dhul gaalo wada baaragaleen oo sidaan ogsoonahay wadamada tan Yurubta caruurta balaayada loogu dhigayo lagu barayo makhaaniid magaranaysaa bilowdan baa la barayaa wixii dacari iyo xumaana waana la iska qaadanaya laakiin maraykankaas wax dheer tahay war nimankii iyo dumarkii hadii ay magaranaysaa dhalaan iyo dhalay isu hayeen ama islaanta ay xoogaa xanuunsato isla hadasho ama ninkii xoogaa wareer iyaga sheedan isku diray iyaga isu muuqda in diina inda Allah rasul wal hooyada waxa cadto iyo calaacal ka yeeray iyo uqdada lagu beeray la daawad maxkamadu heesta ilmo raba inuu iga qaato waa la caawiyo garabaliisi wareerdaysana liiga dhigi qof waa la حنون اللي Soomaaliya taas waa waxa leeyahay way waalantahay ilmeeygu maxkamadu heesta way waalantahay naa kale u sharaxayay inuu qabiilo waxayna lagu qabaaniyo ay doon keeran maxayabaniga ma jirin naga qabiilnaa ilaahay caaf wali xaasida ya waatir naa kale u socdaa waatir ilmihi baa laga qaadanaya waatir inta waa macquul asaahata maxaa muhiim in hooyatahay يعني دمر كأنه حتى هذه هي حالة دي كفران تاعي ولا ليه عروتي بالله سك قاعدنا يا ونك أولاد يبوق ودحية وهالك عدانو فرديو ليه كان الماء ولنا أكتك الأم وقتها يا وتنكروا إن حنون تاعنا هواية الصومالية بمعقول يعني حنونك دبريشن كي ستريس كي حنون هذا نفسه يعني واحد عكروية ذاتك الصوماليات بقف مركزو قبل حنون نفسي وحنا قوانين أي وح غيري أتاي سي على الحنون وجرا أما ذا حنون وجرا أي قفك حالة نفسية وسامين كرتها وقفك بحنا أنا عافيمات إن مقرر سعيد يدوري هذه النقطة وهي أفكار المركة مسك حديث عاونة هي إن وسيا إلى بورات هاي لكن إن مركة بوغل وسيفرة والله سي أنا تقفكي أما واحد عذرك كوسي بدينا يسيد المهين لا قاطع وقالت الله أرسل وأتقنينوي والله إلا سي داوضة سيدا يلموه يقول لك إياه يخشوعة كم مطلع هوي جركاغي وحنا هي لغا جاray يا دل يا دلان يا ilmo meel hooyo uga wanaagsan ma jirto ya gaari bay wada waa buuqsan tahay way ooyeysaa way baqaysaa
xanuun baa ka muuqda haddana saasay tahay ilmaheedii yaraaba waxa leedahay hooyo maxaa timaaga sidaan u galay hooyo yani ka war walacba ilmaheedu u muujinaysaa waxa u sawiranba in laga qaadanayo alla ilaahu hooyooyinka u naxariiso nolol iyo nimco la sheegaa hooye agtaada yaa xataa haddii ay maskaxdeedu maqan tahay baan kuli weli ilmaheedii bay kusii dhegantay ninka kane maxamed leeyihiin maxamedow maxamed alla alamay hooyadaa soomaaliyeed diiqad baa ka muuqata iyo dayac u daa hooyada ilmaheeda oo hooyadatan haddii ehel iyo xigaan iyo dad soomaaliyeed oo damiir leh ay jiraan war hooyadatan caawinaad ba u baahantay oo naxariis bay u baahantay oo hadal qabo bay u baahantay oo ducay u baahan tahay ee duleen iyo in gaal loo diriyo in ilmihii laga qaado ma baahna war ciyaalada waxaa xumeeya oo hadhowdii darbi jiifka iyo inay hub qaataan oo may garanaysaa ay diinta ka baxaan horseeda waa hooyooyinkooda oo ka xaysanaya weeyaan islaantaa hooyada ay gaarteeda walaysa ninkaa iyo wixii u dhow afkaartiisa wata iyo ma garanaysaa ilmaha kana weynaayadaba aysan uga maqlaan ha loo daayo dhasha oo indhaha cas iyo calaacalka iyo hooyanimada iyo islaamnimada ha loogu naxariisto laa ilaaha ila allah maxamad rasuulullah sidaynu ogsoonnahay qurbaha caruuraha haatan jooga ee la leeyahay ma garanaysaa ay dhibaatooyin bay horseedeen ee la leeyahay waa xaasay sameeyeen ee la leeyahay waa gaaloobeen ee la leeyahay waxyaabaha dhibaatooyinka u horseedaya waxa weeye kala fogaanshaha waalidka siiba muhiimaddu waa hooyada ilaahay looga baqayo hooyadaa soomaaliyeed ha loo gurmado waxay gargaar iyo mudnaan hooyo leedahay ha la siiyo oo tan kale haddii ay caafimaad iyo baxnaano ay u baahan tahay dadka soomaaliyeed markii ay qof xaalad ku jira ay arkaan yani qof waalan kunuuta lisaban maqli jira sidaa yeel uma baahna ducay u baahan tahay ilmaha way kula joogayaan bay u baahan tahay hadal nasteexaa bay u baahan tahay magaras ninankan imtixaanka ah oo haddii ay xataa xanuunsan tahay ilmaha keenta ku haya gaalada usoo dirayana war in adeero iska dah oo walaalow dah oo waxa weeye tan kaleeta aad laleeyahay waa guursa xataa haddii ay run tahay iyada iskaad haddii ay been tahayna waa macquulo inay waxa laga yaabaa ku sasteen hooyada duruuf iyo dayacba ka muuqda dhasha iyo dhallaanka iyadaa u hawlootay iyadaa xaamishay iyadaa uur u qaaday iyo dah waxa weeye haddaa xumad iyo xanuun ka muuqdaane xasulooni darri iyo waxa weeye ma garanaysaa ay xumaan ha ugu darin iyo inay dee dhar kaba dhigato daa hooyada war dadka soomaaliyeed ee hooyadaa soomaaliyeed ka agdhowna waxaan leeyahay waxa weeye hooyada tan wax allaaliya waxaad is leedihiin waa gargaara way u baahantahay ahaatayaa in maskaxda iyo niyadda loo dhiso la yidhahdo dhashaada cidi kaa kaxaysan mayso ahaatayaa dee ma garanaysaa in loo caqli celiyo ahaatayaa in wehel la siiyo ahaatayaa in wixii dayactira u baahantaha la siiyo ha la siiyo bal waxaa dhici karta xataa inay xanuunsan tahay oo ay ma garanaysaa iyada ruuxeedu xaala nafsiya iyo daaweyn ay u socdaan oo xaala nafsiya daaweyn ay u socdaan xataa ilmihii la soo carartay baa dhici karta marka xataa haddii ay taasu dhacdo ay hooyo xanuunsan tahay ha loo caqli celiyo ha la yidhahdo ilmahaaga waad arkaysaa dad ehela ha loogu dhiibo ma garanaysaa ha laga agdhoweeyo de haddii aysan awoodin hayntooda oo xanuunsan tahay haddii kaleetana hooyada waxaan leeyahay war haatana xumada ka muuqata xanuun yaan loogu darin inta dib u kulmayna gacal waxaan leeyahay warsani war khayr asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu